waqti dheer ka hor waxaa jirtay naag sixroolad ah oo ku nooleed tuulo. maalin maalmaha ka mid ah waxaa magaalada ka soo laabtay nin tuulada magac ku lahaa. dhexda ayayna u istaagtay. waxa uuna yidhi, naagtii sixroolada ayday maxaad iga rabtaa? ii banee waddada. waxay tiraahday, sideen waddada kugu baneeyaa? waqti badan ayaa ku sugaayay, haddana waxaan rabaa inaan ku kaxaysto. gacanta ayayna soo qabsatay, wayna soo jiidatay. tuulada ayayna soo dhex marisay. isagana wuxuu dhahayay, badbaadiya. balse dadkii tuulada ahaa joogay waxba ma aysan u qaban karin. indhaha ayayna ka fiirsanayeen oo keliya. balse waxaana ka harin sicii uu watay. waa uuna soo daba kacay, kamana uu saarin. nin ka mid ah dadkii tuulada degnaaya wuxuu yidhi, baashan maalin habeen kasta qof ayay naga kaxaysanaysaa, waa inaan wax ka qabanaa. maalintii dambe ninkii tuulada madaxda u ahaa ayaa loo yimid. waxaana loo sheegay arrintii jirtay ee xala dhacday. waxa uuna yidhaahday, naagtaas sixroolada waxay leedahay weji aad u cabsi badan, mana jiro shaqsi hor istaagi kara. nin ka mid a dadkii meesha taagnaa ayaa yidhi, waxaan sameynaynaa weji sidoodoo kale cabsi badan oo weliba horar ah. mid kale ayaa yidhaahday, sideen u sameynaa weji cabsi badan oo horar ah? wuxuu yidhahdaa, taasi dhib ma laha, qolof ayaan soo qabanaynaa, 2 qof ayaana hoosgelayso. arrintaas waa inaan ku dhaqaaqnaa. ninkii tuulada madaxda u ahaa ayaa yidhaahday, waa ra'yi fiican, waana ku dhaqaaqaynaa. habeenkii markii la gaaray ayaa labadii nin imaadeen. waxaana loo geliyey qolofkii cabsida badnaa. nin meesha taagnaa ayaa yidhaahday, waxaaba u ekaateen reer aakhirad caadi ah. waa uuna ku qoslay. habeenkii saqadii dhex markii la gaaray ayaa waxa ay istaageen. baashii cabsida badneed ayaa waxa ay dhigeen guriyaasha hortooda si ay u aragto naagta sixroolada ah. dadkii tuuladana daaqadahooda ayay ka fiirsanayeen. qaybta koowaad ee sheekadani halkaas ayay inoogu eg tahay. waxaana kasii aanbaqaadi doonaa qaybta labaad mar dhow insha allahu tacaala. si aad ula socoto qaybta labaad, fadlan channelka subscribe saar, videogana like saar. waa inoo dhiirigelin. aad ayaad u mahadsan tahay.